don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Ha oynin ya. تمام Ha oynin. Anaa ku caawinaya, anaa ii imaanaysa, anaa ku soo wadanaya. Don't worry. Bismillaahi raxmaani raxiim. Saa ha oynin maama. Please ha oynin. Ha oynin ya. تمام You have to be strong for yourself. Oohin waxba kuma taaranaysa, ma fahante? Ha oynin. You have to be proud. Soomaaliyay soo dhawaada waa idin salaamay. Soo dhawaada markaa soo badataana qof aan la hadlayaa. Habaryaro ha oynin. Adkayso. Gabar yar baa tahay. Dhibaatadaanayto wax walba ilaahay baa keeno. Shaxshaxlay soo dhawaada. dhibaatadan wax walba ilaahay baa keena wax walbana waxaa tidhaahdaa alxamdulillaah alshukrillah maanta 21 sana jirta haddaad rabtid qof Soomaali la noolaatid aniga baasboor baa qabtaa tikitka anaa kuu soo dirsanaya markaan soo laabto safaraan ahay aniga kaala ii imaaw anigu ila noolaaw xur baa tahay 21 sana jirta meesha rabtaa ka dhici kartaa haddii hooyo iyo aabba iyo reerka dhibaato ah kala kulantay aniga ku nool ii imaaw guri weynaan kaligay deganahay anaa ila noolaanaysaa ifka intaa ka nooshahay iskool baan ku geysanayaa luuqadaan ku barayaa anaa ila noolaanaysaa insha Allah ha oynin gabar yar baa tahay waa lagaa gardaran yahay Soomaalida ilmaha dhalay ma dhageysano kuwaana qaata caawa ha lagu waana qaata gabadhan yar oo anaga aan dhalna 21 jirka ah kuwaana qaata ilmihiina dhageysto ilaa aa ka soo badataanna ma sii daynay gabadhan waxay soo wada wax maskaxda ka weyn mucjizo ilaa aa ka soo badataan anigu wax meesha aan dadka ku soo dhimaashtiri ilaa aa ka soo bahabar macaan ha eedo ha oynin yaa تمام ha oynin a'uudu billahi minash shaytaani rajiim quraan akhriso ilaahay caafimaad ku siiyay alxamdulillah dheh wax walba kugu dhacana wax ana ku aqaana adiga horta iska bax wax walba oo kugu dhacana qadar Allah kugu dhacana ma fahantay ها marka waxaan rabaa sugu codka ku dheerayna isu telefoonka caadiga xira isu gabadha waxa ku dhacay waa ogaanaysiine soo badta marka soo badata hadhow hana igu soo celi iyo internetka naam iga bixay isuga habarir ma ku jirtaa eedo qadka ma ku jirtaa ha okay saaqadka mulki macaa ku soo dhawo xaawa soo dhawaada dhamaantiin waa idin salaamay okay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Soomaaliya caawa gabadha markaa maqashaan dhagihiina qac ka kacay kowdaha wax mucjizo ah aan dhagahayga anigu ii deeq waayay gabadhan ii sheegtay idinkaa maqlaysiin asxaan ii sameeya inta ahaan jirteen ahaada haddaa la kala seexdayna ha lay sheego waa la kala seexday ha lay dhaha barnaamij gabadhan inta telefoonku waa ka damina habeen dambaan soo qabanaa gabadhan haddaa la kala seexday Soomaali kala seexatayna biriq soo dhawaaw ubax soo dhaw dhamaantiin waa idin salaamay qof ooynaya telefoonka ku jiro hal idin salaami kara soo dhawaada okay hadda waa soo badateen ilaa 60 qof ay ku soo darsoonta ilaa 60 qof ay ku soo darsoonta kala 200 marka gaartaan baan gabadhan anigu arrinkeeda keenaya Cabdicaziz waa mahadsantahay عبد الفتاح ومعان ما شوكتا مع كوسيسة جودة كاسية اوكي بروجرام قبل عد كان سي دينا مركانيتو يوتيوب شانل كي غانا سوقنا ولا سوتشي دا سوتشي دان اوكي هابريرو ها هابرير مع هورت سو دواو هاي قبر يربا تسهي لباتن كو سنة جرتا موهو ها اوكي ان وانا كحم هاي waxa kugu dhacay in dhibaatada adiga lagu gaarsiiyay horta qadar Allah u dhacday shaydaan kale meesha uu ku jiraa waana ka xumahay in dhibaatada lagu geeyo maantana in aan la joogto reer Soomaaliyeed aadan aqoon u lahayn adigoo waalidkaaga magaalada kula joogana waa ayaan daro marka waxaan ku leeyahay haddaad u baahan tahay meel aad ku noolaatid anigu ii imaaw anigu hadda safaraan ahay safarka markaan ka soo laabta anaa ku soo wacaya baasboor baa leedahay adduunka meesha rabtida ku noolaan kartaa anigu kaala Sweden guri weyn baan deganahay kaligay ma ahay kariimkay anigu ila noolaaw
aniga ila cuntay meeshaan aada ila aad waxaan raba ila sameey halkan sariirtana wada qaybsanaynaa insha allah ma fahantay ha habo ina gabar yar soomaali ah oo saan igu oys oo saan loo soo dhibaatanays waa ayaan darro ha oynin ha oynin ha oynin wax walba way dhacaan alxamdulilah dheh horta maanta waxaan u mahadcelinayaa maamada gurigeeda aad joogtid iyadana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta adigoo u k jooga oo london ma joogtido ha adigoo Birmingham ha birmingham 2 hours ha away ya 2 hours away from London 2 hours from london birmingham aa joogta maho maanta waxaad heli kartaa 21 jir baa tahay nin ajaanib intaa raacid balaayo qamri xashiish wax walbuu ku bari lahaa maanta alxamdulilah dha wixii oo dhanna kuma jirtid cid soomaaliba ilmaha iskoolka asla dhigataan hooyadooda gurigooda alla joogtaa marka horta alxamdulilah alshukrilah dha marka ugu horeyso ma fahantay ha marka waxaan kuu sheegay cabdirasaaq alteesto waa ku salaam amoore miya soo dhawow waxaan rabaa inaan ogaado waxaasay u dhaceen ma ii sheegi kartaa ha aniga 13 jir ah oo fadhiga hoose jiifna aniga walaashayda fadhiga hoose jiifnay waxaan cunay watermelon oo so waan isku kaajay ani like 12 meelaha habeenkii waan isku kaajay haye marka intaan kacay waan nadiifiyey kursigii anigana waxaan waayay suwaal aan xirto because suwaalkan xiran lahaa wuxuu yaalay dusha hooyo qolkeeduu yaalay hooyona iyagoo dhan way jiifeen so aniga kursigiyaan ku noqday waan dekiyaan saaray shaad dheeraan iska xirnaa marka like I say couple of minutes 30 minutes to an hour aabaa soo degay so anaga waxaan kusoo kornay aabo bogana gelinaya so waxba khalad saas maan ugu ujeedin so aabuu yimi wuu isoo agsaaxday wuxuu igu yiri aniga waxaan ku yiri aabo hoosta dekaha gelin wuxuu yiri waayo waan isku kaajiso ma xirni suwaal iyo nigis waxaan la xiranahay shaad marka wuxuu yiri hayo waa okay marka waxaan dareemay asigoo ita taabanaya waan qaboobay waan cabsaday marka waxba maan oran marka khadiija madaxeeda walaasheeda yar khadiija madaxeeda soo taagtay marka gacantiisa wuu dhacay wuxuu yiri oo khadiija hooyadaada ku doonaysa bax dusha tag hooya ku doonaysa waxay tiri okay aniguna waan cabsanay waxba ma oran karo hadalkii afkam ka soo baxayo marka dushu ay tagtay waxaan dareemay dekaha agteeda oo kor iyo hoos soconay like wuxuu sameynaya aniga marka animu u taabsanaynin hal mar daawada iga geliyay haye daawada iga geliyay habeenkaasoo dhan anigu la igu ciyaarayay ha oynin haye aniga igu ciyaaray dabada xooga iyo xanuunsa kas dabada uun igaaga sameeyey and then for months or like the second daygii anagoo dhan aan hoos joogna anigoo cabsanayo anigu wuxuu igu yiri dhagaha oo aabayaasha oo dhan ilmahooda sidan ay ku sameeyaan waa okay so aa cabsanin anigana ma doonaynin aan waxaan leeyahay in aniga sin I thought I was committing sin because aabahayga maskaxdeeda waxaan isku jeeda waxaan aabaha wuu ku sameeya ilmihiisa laakiin aniga maskaxdeeda waxay ugu jirta ma doonayo laakiin hadda ilaahay wuxuu ii qorayaa oo xaaraam camal because aabahaygan diiday marka anigoon second daygi anagoo dhan hoos joogna aniga sariirta agtiisa aan jiifaa laakiin wuxuu doonay inuu bagga i gashto anigana waan iska riixaya asigana wuxuu waay maxaad ii riixaysaa naya xaggan imaa marka wuxuu maayo marka hooyaasaa ii eegtay hooyana waxay naaska siinaysay walaalkayga yar
naaska siinaysa and then hooyo waxay ugu like third fourth day hooyo waxay ugu why maxaad iskaga dhigaysa inuu aabahaaga nin shisheeye yahay anina waxba ma oran waan cabsaday so for months like 3 bilo ha 3 bil meelaha wuxuu ugu sameeyeen dabada and then excuses oo igu oranay like first wuxuu yiri aabayaasha wuxuu ku sameeyaan ilmahooda marka wuxuu yiri waxaan ku ready kaaga dhigaya ninkaaga sida u ogaatid waxyaalaha loo sameeyo marka wuxuu yiri hooyadaada ay soo diiday aabahaaga waa inaa habi ka dhigtid marka dabadu ahaa after 3 months wuxuu noqday horta like horteedu ku sameynaya so hadda labada meel ugu sameynaya marka any chance aan guriga joogo marka even aan ill noqdo aan jirado weli iskuulka waan tegi jiray because waan cabsanay ma doonayo waxaan so the first bill waxaan umlay okay uu ahaa hortay hoos igaaga sameynaya xanuun waxaan iska riixay waxaan umlay inuu ilaahay ii qoriyo oo inanta waa inan xun aabaheeda diiday marka hal maalin iskuulkaanu joognay waxaanu daawanayay precious waxa weeye movie oo nin hooyada ninkeeda gabadhu fuuliya ilmaha ka dhashay iyo wax kasta so markaanu daawanayna gacantan taagay macalinka waxooda macalin waxaan okay ma aha ilmaha oo dhan wuu ku dhacaa intuu movie oo dhan uu joojiyo wuxuu ku yiri haddii waxaan kugu dhacayo waa inaa hadda hadasho because waxaan okay maha aabayaasha ma sameeyaan waxaan so waan aamusay marka qofka waxaan u arkay asin anigu waxaan igu dhacaya so hadda guriga markaan tago aan garanin gurigan tagay wuxuu igu dhacayo waxaan bilaabay inaan dagaaltimo wax kasta dagaal asigana wuxuu keenay inuu xoogsado xoog ii qabto inuu igu sameeyo after 14 meelaha waxa iga soo dhacday baby anigoo jiifa aniga hal maalin oo jiifay waxaan ku kacay sariirta oo dhiig ka buuxa anigana dhiig wada leenahay hooyadana aniga waxaan leeyahay inuu dhiigiiga yimi maxay qala hooyo my period came hooyada timi intay sponge way nadiifinaysa haye aniga kusoo gadaya buushka iyo wax kasta aniga markaan suuliga galay hilib hoosteeda like marka suwaalka bixiya hilib ku jira suwaalka iyo nigiska hilib dabarka ay xanuunaya luguma xanuunaya aniga waxaan isku leeyahay waa dhiig xanuunka waa normal second day dhiig migiman 1 dot or like dhiig u akeen oo pink hoosteeda ka timi marka couple months after uu igu sameynaya qolkood hooyo dusha qolkeedaan u joognaa uu igu sameynaya aniga waxaan qora ilaahayo please hooyo ii soo gasho please ilaahayo waan cabsanaya ii soo gasho ma doonayo kasi xoog u haya gacmihiisa wuxuu igeli like spider camal intuu saa ii qabsaday uu igu sameynaya hooyo way soo gashay alxamdulilah hooyo soo gashay hooyo inta abaabka saa u furtay eegtay ilaan marka abaabka la furo qolka waa mugdi marka abaabka la furo nalka soo galaya wax kasta loo jeeda hooyo inta saa u furtay eegtay aniga oyni uu asiga i kor jiifo abaabkii xirta jinjartii hoos tagtay anigana I gave up dagaalkii aan dagaaltami I gave up waxaan tiri okay then wuu igu sii sameeyey so markaan ahaa 15 uu joogsaday because dagaalkii waxaan keenay inaan is wada fafeedno like grown men like laba nin oo waaweyn oo isdilaya aanu keenay 16 markaan 16 noqday wuxuu qolkii ii soo galay asigoo bindi haysta wuxuu doonay inuu mar kale igu sameeyo qoortii ii geeyo wuxuu in like aamuso marka adigoo saas mindida igu hayo oo gacanta kale suwaalkiisa bixinaya aan like waan ka furfurtay markaa lugtaydu gooyay markuu lugta gooyay waan ka caray waxaan u tagay jaarka wiilkan kalam la oradan u tagay hooyadii neersa ahayd iyada lugta ii nadiifisay oo ii xirtay marka hadda hooyada waan u sheegay 17 reasonkan ugu aamusay is because aabay wuxuu yiri oo ninka wuxuu yiri
aan sheego first ma lay aaminayo second of all haddaa wax oratid anigaa kow kaasinaya habiir waxaan doonaya meeqa jeer inaan kow iska siiyo oo adigu isdishid waxaan iska soo calaqay janjarta sidaan le u dhinto kusma doonaynin xanuunka adimaa jaraanjarta iska soo tuuray aniga janjarta iska tuuray kismaba doonaynin xanuunka kis waan ogaa maalintaas intuu soo noqonay mar kale ugu samaynayo so janjartan iska tuuray anigoo calaqan hooya iga soo saartay oo inta xariga iga goysay CPR ay ugu samaysay waan kacay ma xarag baad isku xirtay ma jaraanjarta kusoo tuur rabtay habar yaro ma xarag intaa isku xirtay jaraanjarta kusoo tuur rabtay ha ma iska tuuray waa iska tuurtay haye waan la laaday hooya intay goysay xariga ay CPR isiisay haye so waxay ugu tiri waa maxaa u samaysay ma doonay inaan joogo marka waxay tiri nayaas waxaas weligaaga samaynayn yaa hadda wax ku haya aniga ii sheeg waxay haye marka maskaxdeeda waxa ku jirta waad igu soo gashay ha qolkay kugu soo gashay way ku aragtay adoo aabay wax kugu samaynaya maxay wax kaaga qaban weysaa maskaxdaada ku jirtay haye ha ona habiyo ninkan wuxuu hooyo ku samayn jiray iyadoo uur leh uu kow ka siin jiray uu dili jiray stoofka ku kartaa iyadoo cunto karinayso uu madaxeedu hoos ugu gelin jiray ku kartoo daaran kukarka oo daaran muu hooyo madaxa ugu gelin jiray hoos ha uu sii dili jiray aniga always u hiilin jiray aniga oran jiray alla hooyadaydaa taabnay markuu saa ii soo jiraysto waan isku kaaji jiray bas waan ogaa inuu kow iga siinayo hooyana ilmaha dasha u caran jiro qolkay isku xiri jireen anigana kow iga siinaya suunu iisoo qaaday ulu iisoo qaaday dacasu iisoo qaaday anything markuu daalo wuxuu ogna shaatkaaga bixi suwaalka bixi dulka saaxo dulka marka saaxaysu ulu ugu dhifanaya asagaa dhalay soomaalida suga habarma eedu waxir ii sug soomaalida i weydiinay horta waxaa idiin sheegaa dadka beeshkayga ku xiran haddaad idinka issoo dhagaysan weyseen ee gabadhan 20 sano dhibaato ku jirta cid soo dhagaysan weyse weligeed cid dhagaysta ma laha haddaadan idinka isdhagaysan anigaa dhagaysta ma fahante anigaa dhalay dhibla'aanaa dhalay ma fahanteen haddaadan walaasha edab aadan ku dhagaysanaynin iska aamuso aabbihii dhalabay ka sheekaynaysaa so haye haru soco eedo mii maqasha haye ha so hooyo wuu dil anigu like igu dili jira waayo wax kasta igugu dhufan jiray carruurta kale markuuna for no reason u dilayo oo hooyana uu gacanta u qaadayo aniga always oranka may aad taaban hooyadayda daa okay adigu boolis ma u wacday eeday waxaan ku weydiiyey boolis ma ugu wacday markaa adigu ninka aabbo waxaas markuu samaynaya maayo waan cabsaday wuxuu yiri qofna ma ii aaminayo haye ana waxaan u cabsanayo walaalahayga waxa lagu waxaan ka fakiray haddaan waco walaalahayga la qaadanayo systemkana ogada waa messed up ilmihii oo hadda la qaatay waxay noqonayaan qaar xashiish cabiya qaar alcohol cabiya qaar la fuulayo wax kasta aniga systemka saas maan u doonaynin walaalahayga inay galaan so afkayga waxaan haystay anigu igu dhacay walaalahayga ma ku dhacayaan so inaan aamuso ilaa hooya inacaysa haddooto walaalahayga ma inacayaan okay marka maxaa dhacay markii dambe maxaa dhacay okay ilmaha markay kaa soo dilmeen dhiiga kugu dhacay oo maxaa lagu dhahaa ii sheeg oo aad rafaaday oo aabbo uu dili jiro hooyo ee dhibaato aad soo martay caqaba aad soo martay ugu dambayskii maxaa dhacay ugu dambayskii 17 marka ahaa hooyaan u sheegay hooyaad u sheegtay ha haye maxaad ku tiraad hooyada ha hooyada maxaa ku tiraad 17ka markaad jirtay waxaan ka ogaday hooyoy aaba wuxuu iga dhigin jiray naag reasonka dusha ila aniga ooli ii wici jiray oo oran jiray may saciida bogi iglinaysa may saciida isaaxinaysa may saciida ii raacaysa holland may saciida ii raacaysa london iyo meelaha it's because anigu iga dhigin jiray naag wuxuu iga oran jiray ina hooyadaada habbi ma iga dhigayso hooyadaada maanta ma igu samaynin so adiga habi inaad iga digtid adiga inaan waxaa ii samaysid reasonkaasoo dusha ii kaxaysan jiray inuu ifuulo oo naag iga dhigto hooyna wejigeeda feersi wuxuu ahaa like shock
way naxday haye and then waxay tiri aniga wax samaynaya waan cabsanaya aan sheegin kas kow iga siinaya marka waxay tiri haye aniga like I say 1 week later aniga walaashayda hadda gurigeeda joogo friendkayga alcaamadan joognay waayo saa wacda waxay u tiri aabahaaga ku raadinaya aan waxay waayo waxay tiri ku raadinaya aan waxay waad u sheegtay waxay tiri haa ku raadinaya haya aniga gurigan ka baxay guriga hooyan tagay waan waxaan ku oqday aawe aabo oo adigu kuu soo baxay 2 seconds later asigaa soo galay asigoo dafta badan wuxuu yiri alla soo gal ilma qolka ka baxa soo gal saciidaha soo gal asigoo warbaraya wuxuu saciidahay waxa doonaysa inaan hooyo iyo familka aan lose gareys waxa doonaysa inuu wax kasta naga dhaadhaco aan waxay ramay marka wuxuu hay hadalkoo dhan bedel oga farti aan ku geliyay hadalkoo dhan bedel maxaa hadalkoo dhan bedelaysaa haya farta u bedel iska dhig inaan farta hoostaada geliyay inaan farta hoostaada geli aan wax kale ku gelinin habiya walaashayda walaalkayga iyo hooyaa maqlay iyagoo asigoo saa oranaya haye way maqleen asigoo oranaya hadalka bedel aan waxay ma bedelaya hadalka waa run maaha ilmahan luusgareynaya hooyadaadan luusgareynaya waxaase doonaysa inuu dhaco waxay listen waad ugu samaysa adigaa khaladka leh maxaad igugu samaysay saas marka 2 minutes later intuu hooyo la hadlay carabiyuu ku hadlayay laakiin waan qartay wuxuu oranaya oo gabadha waa beenteeda waa confused waa stressed wax kasta examskeeda wax kasta soo socda so waxay u baahan tahay break ana wuxuu ugu yiri Canada tag habiya waan garanay waxa Canada jooga waxa jirta naag oo ay isgaranayaan oo fasha garanaysa oo sixir ka samaysa a'uudu billahi minash shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim waxay maya ma tagay Canada hadalkayga ma bedel waad igu samaysay asigana maskaxda madaxu qabsanaya oranay my saas ma badafirayo dafarin anigana waan late noqdo waan saxday second legi wuu joogaa ana hooyada waxay ma dooni inuu gurigan joogo mise anigaa baxaya hooy ninkan wuu igu sameeyay waxan waxay tiri haya maxaad doonaysaa waxay dee ninka fur on top of that ilmaha guriga yuu imanayo ilmaha uu ag imanin waxay tiri haya hooyo ay furtay laakiin waxay ku khaladay is ilmahay hadda geysay anin 24/7 waxaan oona hooyo ninka muxuu guriga u soo galaya waad iska kala tagteen hooyo waa xaaraan ma aha inaad isku gaari aad ku jirtiin ilmaha xagga abaabka uga sii hooyo yuu soo galin intaas oonan ku lahaa hooyo soo galin haddana waxay oonaysaa gabadhan 3 years ay stress i gelisay waxaan ku oranay hooyo yuu soo galin guriga that's it hooyo waxaasuu sameynaya so anyone honestly waan ka tagay guriga like 7 months ago aan guriga ka baxay waxaan tagay jaarka for 3 months marka eedadeyda hadda igu tiri my guriga imaam anaga ila joog waxaan hayaa okay walaasheeda yar oo 15 ka ah soo guriga timi aniga ma ii sheegay waxay sheegtay habeer iyo inanteeda kale aabo wuu itataabtay anigoo schoolka ka yimi oo PE shortkayga xiran عبايدون سكساري في شوت كي حرن ويأكل ويتطابط ما وسكت تطابط يجد وين خبودي and then I think إنه هواياتي مثلا neighbor كها يمي ماكو مخلو وجوز أنت إذا عرفت سولك إيش بحرت هو ويسي إيه ساو شيء أنا مكان بصام مخلو حير ما بوليس كانوا شيء مثلا أنا قاعدين كوكا سينيا ولا أنا يقول حن وقت سجى because هاي ما كحنين هاي واحد ما يتشوشنين ولا عشان هاي إذا أنت ما حتى بس هاي منك وصومالي هي وصومالي هاي سعيدة أغن كده وحبة ما يكون سميني سيدا أنا جي أمينيسا ولا عشان هذا كده أنا حتى رئيس أنا واحد عاونات تنقبهنا إس ولا له هيجا أنا يقول دعي واقع لكن ولا له هيجا متوني إنه واحد كده عكس ويوالني هبير هذا ولا شيء وتتابتي she can't concentrate exam كوي fail كرانيسا أنا وتتابتي مو بقولين وحبة مو كسمين لو وتتابتي
aniga hadduu aniga waxay ugu samayn lahaa ugu sameey one time walaasheeda way waalanaysaa ani waxaan u baahnaa caawinaad inaan walaalahayga save garay hooyadeedu tuso hooya ninkan saan wuu sameeyey ilaa asiga daba socotaa okay wax ma ku weydiiyaa booliiska adigoo aad wacday aad u sheegtay arrinta booliiska marka maxay ku jira ilaan booliiska adigu wacdee booliiska waxay ka qaadeen statement anna waxay ogadeen waxay doonaya inaan sameeyo video statement so emotionskayga ay qabsadaan waxay lahayeen social services was involved social serviceska waxay u tageen guriga markay tageen hooyo waxay ka dhaadhicisay waa happy ilmaha waa happy aabahoodana happy uu ku yahay aabahoodana waxba bay ku sameynay intaasi ka dhaadhicisay hadduu waxaa run yahay waa maxay walaasheed u soo carartay waa maxay anaga nugu timi eedadeed u timi ilaa aniga may doonayn inay ii sheegto kas waa ogtahay inaan xanaaqayo eedadeed u timi waa maxay u oranaysaa waxa hadduu been yahay haddana hooyadeed meelaha waxay ka socotaa oranaysaa oh saciido suuqay gashay reasonkay waxaan u sheegaysa waxay doonaysaa freedom first waxay tiri 3 years gabadhan ay ugu stress garaysay hadalkan ay ugu dhibtay haddana eedayaasheeda kale london degan waxay ku orantaa hadday hadalka teeto kas waxay doonaysaa niman kale la seexato haye so which one is it ma 3 years ago miya mase hadduu hadalkan soo baxay hooyo hadalkeeda is not like one way ma aha wuu iskala beddelaya ninkaas uun haddana way igu xanaaqtay markaan booliiska wacay waxay tir gurigaya iisoo galay masaa mindiyaan kaa taagay because ninkaan booliiska ugu wacay kas runtan doonaya inaan u sheegay inaan furfiro hooyo waa ka caddaynteeda wuu igu sameeyey ilmaha ka ilaali wuu ku samayn doonaa laakiin malay aaminsana hooyo waa taa no once eedadeeda weydiisay siday tahay saciida no once hadduu waxaan been ahaan lahaa ninkaa muu iman lahayn ma igu oran lahayn aaba maxaan kugu sameeyey muu ila hadli lahayn hooyana ma ila hadli lahayn ma iyaga own lifekooda degan aniga maba lay doonayo anigana cawada ah aniga hooyadeeda caawin jiray anigaa saydgeyn jiray markuu gacanta saari jiray aniga u hiilin jiray walaalahay kale ma hiilin jirin aniga hooyadeed u hiilin jiray hooyadeedna once ii hiilisay hooyadeedna once igu ninkaa ku khaylisay ku tira ninkaa gurigaaga soo galay inanteeda taabo no once hooyadeeda saasir aniga maba ii jecla maba ii doonayso because runtan sheegaya runtan sheegaya ilaahay wuxuu been yaala sheega runta ku socda waata runtan ku socda hooyadeeda way nacday runtan sheegaya hooyadeeda ma i doonaysa anigana hooyadeeda waan doonaya aawo eedu ma kula joogtaa eeddi ii weydiinay ma rabtaa inay hadashaday ku tiraada inay habarhano eedu ii weydi inay hadashadee rabta asalaamu calaykum codkaa kuu furan ukhtii codkaa kuu furan kow dheh kun qofna wayna dhegaysanaysaa laba dheh waxaana waxaa waaye waa masiibo soomaali way ka dhacdaa waxaan waa cudur ma fahanta horta soomaalida waa inay ogaadaan waxaan waa cudurkan qof walbuu ka dhacayaa cudurkan qof walbuu ku dhacaa ma fahanta cudurkan ummadda allaha ka qabto anigu I believe in waxaan cudur yahay dadka soomaalida waxay anagu muslimaan hanaguma dhaco laakiin qof walba inuu cudurkan ku dhacaya anigu waa believe garaysanahay cudurkana inta qabta allaha ka daweeya inta aanan qabinna allaha kuma rido gabadhan sheekada isay igugu sheegtay waa very sad waxaa waaye meel baa i go'day
siday ii sheegtayna gabadhan adigay kula joogtaa 4 bilood marka waxaan ku weydiinaya waxa waaye waana gabar yar oo la soo fara xumeeyay waxay tiraa 14 sano markaan jira ilma iga soo dilmay saasay ku tiri waxay igu tiraahday cid i dhageysan